السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وعند داود الكسر دواء برنامج كمدرسة السياسية أو هذا هي وكالات كداوتان سومالي نيوز تي في حرمته وكلية هي مقالة مقدشو. برنامج كتضبط كان وحى مرتكو وزير كحيين كوزارة دلنيرة عيارها الدولة الفدرال كصوماليا احنا مدن كترسن برلمان كجمهورية الفدرال كصوماليا مدن أحمد عمر إسلو. برنامج كنتي سبضن وحنكو ايجدونها عيارها كفرمية مقالة عاصمة مقدشو اي كبقليان معمول قبريدة دلك سنة كي لبعض وزارة دلنيرة عيارها دولة الفدرال كصوماليا مقدشو اي كو قبنيسو جال وزير مركز رسوله ومحسنتهاي ودواهاي وكاga mahadcelinayna fursada wacan iyo ogolaanshaha ku aadan in waraysi aan kula yeelano aad inaga aqbasho tan iyo xilka wasaaraddan markii aad la wareegteen maxay idin qabsoomay bismillaahir rahmaanir rahiim sida ogtahay xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee wasaaradda Xasan Cali Khayre waxa la isxiyay كودي بشي أبريل وحن حلكي وزارة الأول إن أفرت بشي أبريل ورنتي مدهات لقيتو سديد بلوت رنتي وحياة بدن ورنتي مقع نوع شرف هو دولة الصومالية يا نوقب صومي كوزارة دهان وحياة مهم كأي قبلنا كم إذا إنه هالشيء إن كلها وزارة عن حرقينه كان عارفينه سياسة القرن اللي يرده siyaasaddaas oo runtii wax furo u ah nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaana ogtahay dhalinyaradu inay yihiin boqolkiiba 75 bulshada ay ka yihiin waxayna u baahan yihiin siyaasad hagta oo runtii ay ku caddahay wax alaala wixii dhalinyaradu u baahan yihiin runtii waqti badan ay gelinay dadaalo badan oo runtii aan ku raadinaynay inaan siyaasaddaas hirgelino ayaan sameynay waxaana markii ugu dambeysay fursad aan u helnay inaan siyaasaddaas golaha wasiirada aan ka hor ansixino dadaaladii ugu weynaa ee aan galno si aan u ansixino waxay ahayd inaan wada tashi la sameynay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir ayadoo waqti badan uu soo qaatay waxaan sidoo kale wada tashi kala yeelanay civil society ururada bulshada rayidka dhalinyarada daladaha madaxa banaan waxaan sidoo kale wada tashanayna culimada Soomaaliyeed runtii aan aad iyo aad aan uga wada hadalnay da'da dhalinyarada lagu tilmaamay doodeer iyo falanqeyn dheer kadib waxa culimadu ay go'aan ka gaareen in da'da dhalinyarada la gaarsiiyo 40 sano ayadoo la cuskanayo diiniyan ayadoo la cuskanayo ayadoo la soo qaadanayo aayadii quraanka hatta ida balaga ashudda wa balaga 40 sanad oo waqtiga nabiga risaalada loo dhiibay marka sidaasdaradeed dastuurkan waa ku cadahay 25 sano qofku inuu xildhibaan ku noqdo 40 sano madaxweyne ku noqdo fursadda dhalinyaradu ay haystaan fursad aad u qiimo badan ah waxaan aaminsanahay inay meel walba ku cadahay waxyaabaha nuxurka ee muhiimka ah dhimanno waxaan diyaar u nahay dadaal dheer aan u galayna inaan dhameystirno waa mahadsan tahay dhawaan xubno ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno matalayay wasaaradaha maamul goboleedyada dalka waxa ay ku shireen Kismaayo waxa ay soo saareen in Kismaayo ciyaaruhu ay ka dhici doonaan wasaaradda xubno ka tirsan ayaa ku sugnaa haddana warar kala soo baxay in magaalada caasimadda ee Muqdisho ciyaarihii maamul goboleedyada lagu qabto maxaa lagu qanciyay maamulka Jubbaland خير الله سيو وزير الدلنيرة العراق عمرو وزير الدلنيرة العراق عمرو قديس محمد تيري شركي لو قمنا يقولها وزير ذا كسماية أي كوج آمسي إن كسماية نقطة العدة مرتجلين لهيد كوب قبل هذا اللقطة أيضا أورنتي عصي أسوق هاي من مامل كاي مدحت الجبلان وزير دوا كأقوى شيء سيداستراد قرشو وحوا إن كسماية ترتكل وقبته الوقت بدن يوم معلومة دير كديب وحا سامح وحا فرصة يسامح واسمام الجبلان إن عيارت هالكال وقبته ظروف أمنية يقرون في أنويل المستنين المامل الجبلان وحسي الشرف ووعد سيد وزارة النيرة إن مال على ماشي لقين كرو عيارت اللو ورجي كريني لقيه إسلام مركزنا ديارو يهين إني كسو قيب كلام عطياس ورنتي مر لباد نوقي من مامل الجبلان أنا ونعتي حقلني كدب وضع ترشي aan sameynay oo aan la sameynay madaxda wasiirada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir
waxaan ku go'aaminay in gobolka banaadir ciyaarta loo soo raro wasaaradda dhallinyaraduna ay shaqadaas qabato. tartankan waxaa ciyaari doono dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka banaadir. gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay tartamayaasha, sidoo kale dowladaha xubnaha ka dowladda federaalkana waxay ka mid yihiin tartamayaasha. tartankan waxaa hogaamin doono oo runtii udub dhaxaad u ah wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya. ciyaaryahanada matalayay maamul goboleedyada waxa ay soo gaareen Muqdisho, waxaad u samayseen kulamo soo dhaweyn ah, qaarkood hoteelada la dejiyay. ka warqabkiina ku aadan ciyaaryahanadaasi ka qaybgalaya tartanka maamul goboleedyada matalaya halkee buu gaarsiisan yahay? wuxuu runtii heerkii ugu sareeyay ayaa runtii dowladda goboleedyada ku soo dhaweynay. waxaan dejinay hoteeladii ugu fiicnaa, qaarkood waxay degan yihiin Royal Palace, Coconut Hotel, Muqdisho Guest House, Oriental. hoteeladaas oo runtii u dhow nawaaxiga garoonka lagu ciyaari doono. caawana waxaan u sameynaynaa xaflad aad iyo aad u ballaaran oo ku soo dhaweynayno, dhallinyaraduna isku baran doonaan, annaguna runtii aan wacyigelin iyo dhiirigelin intaan siin karna aan siin doono, una dardaaran aan siin doono. dardaarankaasoo runtii ah inay si wanaagsan u ciyaaraan, ciyaar wanaag la yimaadaan, asluubta ilaaliyaan, xeerarkii isboortigana ilaaliyaan. waxaan u rajaynaynaa si sharafa arrintaasi inay u dhacdo. isdhexgal bulsho ayay ka mid tahay ciyaartu. waxaan rajaynaynaa ciyaartan inay faro u noqoto amniga iyo horumarka insha Allah. tartamadan waxaanan qayb ka ahayn tartanka orodada fudud, sababtu maxay tahay? go'aankan markii la qaadanayay markii hore waxaa lagu balansanaa in Kismaayo lagu ciyaaro. garoonka Kismaayo uma diyaarsanayn sida aan warbixinta ku helnay tartanka orodada fudud inuu ku qabto. sidaas daraadeed waxaan go'aaminay kaliya inaan tartanka badda cagta aan kusoo koobno. sidii go'aankii barigaas aan gaarnay ayaa weli ku socnaa. kubadda cagta ayaa runtii nuxurkeedu uu yahay in xamar lagu ciyaaro. wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya ee mas'uuliyiinteedu aad qaybta ka tahay waxa ay sheegeen in finalka ciyaarta xilli habeenan la qaban doono, sababtu maxay tahay? waxaad og tahay magaalada Muqdisho waxay runtii qayb ka tahay runtii magaalooyinka runtii farqutariska ee dunida hadda sanadii ugu dambeeyay ee lagu tilmaamo xagga amniga isku socodka bulshada. waa dhici kartaa inay qalalaasa dhacaan, laakiin waxaan ujeedadu ay tahay in 3 saac 4 saac garoonka laga soo tago, dadku isku dhex socdaan. intaasoo kun oo dhalinyaro ayaa imaanaysa oo bulsho ka soo qayb galayso. marka waxaan rabnaa marka magaaladu inay noqoto image fiican u noqoto wadamada kale, amni ay noqoto, ummaddu ay ogaadaan in Soomaaliya iyo Muqdisho ay tahay meel runtii amnigeedu fiican yahay, laguna soo dhiirado, isla markaasna horumar amni iyo mid dhaqaalaba uu ka hirgalo. xiriirada Soomaaliya gaar ahaan xiriirka kubadda cagta iyo xiriirada kale waxay u diyaar garoobayaan doorasho. waxaa jira xiriir ay sameeyeen oo ku aadan hanaankii doorashada ay u geli lahaayeen, walow ka warqabkeena uu gaarsiisan yahay in wasaaraddu ay kaalin ka ciyaartay. haddana dadka qaar waxa ay dhaliileen xiriirkii ay qorteen qaybo ka mid ah, oo waxa ay sheegayaan dadka dhaliishan xiriirkaasi in isku soo koobeen oo kaliya ay ku soo koobeen in qofka hoggaanka qabanaya uu yahay qof qayb ka ah bahda isboortiga. dhaliilahaas ma idiin muuqdeen? sidayse ka wasaarad ahaan arrintaasi aad ugu warqabtaan? horta wax dhaliil oo nooga yimid arrintaas ma jirto, kamana warhayno dad dhaliishaas cabanaya. haddii ay jiraanna waxaan leenahay runtii wasaaradda hala soo xiriiraan. waa mahadsan tahay. dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waxaa jira wasaarado dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ay leeyihiin wada shaqaynta kala dhaxaysa wasaaraddii dhalinyarada iyo ciyaaraha ee heer federaal halkee uu gaarsiisan yahay? runtii wasaaradda dhalinyaradu waxaa lagu tiriyaa wasaaradaha ugu horumarsan xagga xiriirka gobolada. waxaa tusaale kugu filan ciyaarta halkan ka dhacaysa ee gobolada isugu yimaadeen
waxay daliil u tahay wada shaqaynta naga dhexaysa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay tahay mid aad iyo aad u heersarayso kana fiican sidii ay ahaan jirtay. waxaan rajaynaynaa in sida hadda aan nahay aan kusii soconno si dalka wax badan ay ugu qabsoomaan. waa gartay marka si loo eego waxaad qayb ka tahay xubnihii kusoo guda jiray isboortiga sanadahan ugu dambeeyay markaad eegto ma la oran karaa isboortiga Soomaaliya horumar ku talaabsaday? طبعا shalay meeshaan joognay maanta ma joogno. waxaad dareemaysaa in isboortigu horumaray, waxaad dareemaysaa bulshadu inay aad u jeclaatay inay isboortiga ciyaaraan. waxaad dareemaysaa magaalada Muqdisho in tartan habeenimo lagu qabanayo oo runtii oo ay dad badan ka soo qayb galayaan. leerarkii magaalada aad u shidan, garoonka oo ah garoon runtii u muuqda mid horumar ay ka muuqato, diilo iyo faalo wanaagsan oo nabadeed ayaa dalka u muuqda. waxaan aaminsanahay inay tahay arrin aad iyo aad horumar looga sameeyay dhinaca isboortiga. ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM waxay ku sugan yihiin stadium Muqdisho ay ku sugan yihiin. mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraduna waxay hore u sheegeen ama madaxda dawladda in ay ka guuri doonaan. ka guuritaankooda halkee buu marayaa? howshaas waa socotaa, markii ay dhamaatana waan idinla soo wadaagi doonaa insha Allah. waa gartay marka dhanka kale la eego waxaa tahay xubin ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, baarlamaankii 9aad iyo baarlamaanka 10aad ba qayb ayaad ka tahay. kulamadii baarlamaanka ee aad ka qayb galaysay kulankii ugu adkaa aad goobjoog u ahayd, bal haddii aad nala wadaagi lahayd. siyaasaddu marka ka dambeeyo horta waa ka kulushahay oo mowduucba runtii ka xamaasad badan, mooshinba ka xamaasad badan. laakiin markii aniga runtii waxyaabo badan oo aan la soo kulmay baarlamaanka dhexdiisa way jiraan, inkastoo aan weli hor leeyahay oo baarlamaanka inta badan dad badan oo way araga oo 20 sano baarlamaanka ku jiray joogaan. laakiin haddana mararkii igu yaabka badnaa waxay ahayd markii Cabdulli Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha oo runtii mooshinkiisu u socday sawaxanka iyo qaylada iyo shucuurta ay ka muuqatay tiimkaniga aan la jiro runtii ahaa mid aad iyo aad u heersareeya. isla markaasna aan dareemayay inaan ahay qof codkiisu meel gaari karo, go'aana leh, rajaynayay meeshaan jiray inay markaas guulaysato. marxaladaasoo runtii ahaa marxalad aad iyo aad u adag oo laga soo gudbay, cashar badanna runtii aan ka bartay. waa gartay deegaan doorashadu waa Koonfur Galbeed Soomaaliya. ka warqabkaaga deegaanada Koonfur Galbeed bal ka waran? runtii waajibka saaran waa mid runtii ummadda Soomaaliyeed u hayo. haddana waxaa jira waajib oo deegaan oo aan runtii dadka aan matalo iyo deegaanka aan ka soo jeedaba aan u hayo. waxyaabaha ay runtii mudnaanta gaarka aan siiyo waxaa ka mid ah inaan caawiyo marka runtii dhibaato ay jirto oo hay'adaha dawladda wax uga soo xirmaan. anoo markaas ka fiirinaya waxa ay raadinayaan inay tahay wax sharciyad huwan oo aan aaminsanahay haddii aan ugu heliyo inaan qaranka iyo dalkaba aan ku xadgudbin, isla markaasna ayagana aan ku dhiirigeliyo wax sharci ah inay la yimaadaan. iyo sidoo kale wixii horumar ah oo aan arko runtii dadka iyo deegaanka meesha ku nool anfacayana aan runtii kaalin mid aan ka geysto. wixii laga baahdo contribution oo deegaanka ana waxaan runtii inta badan waxaan nahay qof ka qayb qaata. waa gartay marka dhanka siyaasadda la eego siyaasadda muddad ku jirtay, muddadii siyaasadda aad qaybta ka ahayd ma jiraan saaxiibo aad siyaasadda ku kasbatay? siyaasaddu sideedaba waxay leedahay dana joogtay leedahay, saaxiibtinimo joogtaa ma aha. ayadoo saas ay tahay haddana waxaad siyaasadda ka dhex samaysan kartaa saaxiibo joogta ah. haddaan tusaale kugu soo qaato, siyaasaddu marba mowduuca markaas miiska saaran ayaa horta dadka mideeya iyo mabaadi'da meesha ka jirta. haddii aad tahay qof mabdi'iisu fiican yahay oo runtii waxa uu ka hadlayo yaqaana, go-aankiisana uu ogyahay, wuxuu siyaasadda ku dhex samaysan karaa saaxiibo badan. waxaad samaysan kartaa saaxiibo aadan isku fikir ahayn, waxaad samaysan kartaa saaxiibo aad isku fikirtihiin.
laakiin mararka qaar waxaa dhacaysa in waxyaabo mawduucyo aad u adag marka baarlamaanka la keeno qof aad jeclayd oo saaxiib ahayd inaad ku tagtaan marka waxaan leeyahay saaxiibka aad maanta leedahay irina waad lahaanaysaa haddaa siyaasadda ku jirto laakiin wax lagu kala duwanaanaya ayaa ah mabaadi'da meesha yaalla xilliyada aad fursadda leedahay ee howlaha qaranka aadan ku jirin maxaad qabataa runtii inta badan fasax weli maanan helin sida hadda 8 bilood waxaan inta badan aan mashquul ku nahay fulinta waajibaadka iyo maxaan ku raahdaa barnaamijka xukuumadda ee wasaaraddeena naga aadan waa adag tahay waqti aan runtii aan fasax helo laakiin inta badan markaan timekeyga aan waqti helo waxaan runtii aan aad uga fekeraa inaan runtii cilmigayga kordhiyo aan aqoonta buwaagta akhriyo buwaagta diiniga aan akhriyo buwaagta caafimaadka aan akhriyo iyo sidoo kale buwaagta shuruucda aan akhriyo si aan markaasi aan dhinac walba aan u noqdo qof runtii wax walba cilmi walba oo markaa miiska saaran un ka yaqaana waa gartay haddii dhanka kale aan u degno waxaad tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk Soomaaliya dad badan oo iminka wareysigaaga daawanaya waxay is oran karaan wasiirku kooxaha ka jira Soomaaliya kooxdee buu ka taageeraa maadaama hadda aan wasaaradda joogo waxaa adag horta inaan kuu sheego kooxda aan taageero waa gartay laakiin haddaan si caalami ah aan kuu sheego kooxaha dunida ka jiro waxaan taageeraa Manchester oo kale waa taageeraa xulka oo kale waxaan taageeraa Brazil aan taageeraa laakiin maadaama aan wasaaradda hadda joogo kooxda aan taageera xataa yani ma habboona inaan bulshada u sheego aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka madasha siyaasiga oo toddobaadkan marti uu ku yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalk Soomaaliya mudane Axmed Cumar Islow jaal wasiir ugu dambeyntii maxaad ku oran lahayd bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa bulshada Soomaaliyeed ee daawanaysa waxaan dhihi lahaa aad u xoojiya ka soo qaybgalka ciyaaraha maalmaha socda isla markaasna noqdo taageero buuxa garoonkaasi soo camira dhalinyarada dhiirigeliya annaguna waxay noo tahay fursad oo aan ugu diyaar garoobayno inaan dhalinyaradaasi aan u abuurno himilo iyo han iyo runtii ku hiigsan karaan inay gaaraan laacibiinta asaagooda ee dunida kale waa ciyaaraha waxaan rabnaa inaan soo saarno jiil caafimaad qaba oo diyaar u ah inuu dalkan bedela waxaan rabnaa inaan soo saarno ciyaartooy ka wanaagsan ciyaartooydii jirtay waxaan rabnaa inaan jiilkan u bixino dad runtii cusub oo taariikh cusub la yimaada marka waxaan leenahay Soomaaliyada cusub ayaan dhiirigelinaynaa waxaana diyaar u nahay burburka kadib inaan hadda aan diyaar u noqono aad dareemi kartaa dowlad ahaan iyo dad ahaan inaan diyaar u nahay dunida inaan la tartanno marka qarnigan cusub ee qarniga 21aad waxaan rajaynaynaa inaan soo saarno bulshadii ugu fiicnayd oo dhinac walba ka fiican waliba annaga gaar ahaan wasaaradda isboortiga waxaan diyaar u nahay ciyaartooy xul ah oo dhan kastoo ciyaaraha inaan soo saarno marka waxaan rajaynayaa inaad nagala shaqaysaan naguna dhiirigelisaan talada iyo tusaalada haysaan aad noo keentaan si dalkan iyo dadkan baan u horumarino aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalk Soomaaliya ahna mudane ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Axmed Cumar Islow oo toddobaadkan barnaamijka madasha siyaasiga marti ku ah inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo amaan Allah jaal wasiir aad baa u mahadsan